Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idil ahaantiin baddaawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan xilli walba iyo markaasi goor walba oo idin tahay waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan haddaba daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe saar kadibna furo gambaleelka si aad u hesho warbixino dheeri ah wararka aan caawadan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Jabuti oo war ka soo saaray kulanka Farmaajo iyo Biixi waxa kale oo aan barnaamijkeena caawa ku eegi doonaa maamul goboleedka Buntland oo war yaab leh ka soo saaray kulanka Farmaajo iyo Biixi oo berito ka dhici doona dalkaasi Jabuti aynu ku horeynay Farmaajo iyo Biixi oo ku kulmi doona dalka Jabuti ilo ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa faatax u sheegtay in wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno kale ay maalinta berito ah tagayaan dalka Jabuti waxa ayna Jabuti berito tagaya madaxweynaha dowladda isku taagtay ee Somaliland Biixi Cabdi gudoomiyaha gurtida Somaliland wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno ka tirsan xisbiyada mucaaradka kulankan oo sida la sheegay ay fududeysay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa madaxweynaha Jabuti Ismaaciil Cumar Geele martigelinaya waxa uuna furitaankiisa ku casuumay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo wakiilo ka socda urur goboleedka IGAD midowga Afrika iyo midowga Yurub waxaan si rasmi ah loo ogeyn ajandaha labada dhinac ay kulankooda uga hadli doonaan iyadoo shirkani imaanayo xilli sida la sheegay uu jiro cadaadis madaxweyne Farmaajo iyo Biixi uga imaanaya dowlado iyo dad ku lug leh arrimaha Soomaaliya inkastoo si kooban ay bishii February ee sanadkan Farmaajo iyo Biixi ugu kulmeen xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee magaalada Addis Ababa haddaba kulanka Jabuti ee maalinta berito la qabanayo ayaa noqon doona kii ugu horeeyay ee madaxda sarsare iyo ergooyin ka kala socda dowladda dhexe ee federaalka iyo Somaliland ay si fool ka fool ah u kulmaan tan iyo markii Farmaajo iyo Biixi ay xilka qabteen sanadii 2017 dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in midnimadu ay tahay arin muqadas ah halka Somaliland ay iyaduna ku doodeyso in ay gooni istaageedu uu yahay mid aanay gorgortan ka gali doonin waxaan cadeyn sida labadaasi mowqif ee adag ay labada dhinac uga wada xaajoon doonaan ayna isugu soo dhawaan doonaan si xal looga gaaro arintan la isku hayo dadka siyaasadda rogroga ayaa sheegaya in ay rajo abuureyso wada hadal toos ah oo dhexmara hogaamiyayaasha dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ayna taasi horseedi karto tanaasul yimaada si wada xaajoodka markaasi loo ambaqaado kulanka madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ay yeelanayaan ayaa ku soo beegmaya xilli uu muddo xileedka madaxweyne Farmaajo si gaabsi yahay iyo waliba waqti uu jiro khilaaf ka dhex taagan dowladda dhexe Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo ku aadan qaabka loo wajahayo doorashada dhacaysa dalka Soomaaliya maamulka Buntland ayaa ka hadlay kulanka lagu wado inuu maalinta beri ah uu dalka Jabuti ku dhex maro madaxweynaha Soomaaliya iyo midka Somaliland Buntland ayaa mar kale ku celcelisay dalabkeeda ku aadan ka qaybgalida wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland iyadoona kulanka berito ku tilmaamtay mid aan waxba soo kordhinin afhayeenka madaxweynaha Buntland Jaamac Dabarani ayaa sidaas ku sheegay qoraal uu ku bartiisa Facebook ku soo baahiyay isagoona hoosta ka xariiqay in Buntland u qalanto in door laga siiyo wada hadalladaasi afhayeen Darbani ayaa sheegay in Buntland ay tahay maamulka kaliya ee Somaliland la leh xuduudda isla markaana ay tahay in door laga siiyo wada hadalladaasi iyadoo laga duulayo ku shaqeynta midnimo dhab ah Dabarani ayaa ku doodaya in madaxda maamulkiisa ay qayb ka noqdaan kulankaasi isagoona taasi bedelkeedu haddii ay dhacdo ku sifeeyay mid aan masiiri ahayn oo laga leeyahay dano siyaasadeed wada hadal Soomaaliya iyo Somaliland ah oo aan Buntland door laga siin anigu ma garan karo ujeedka laga leeyahay waayo cid ay xuduudu ka dhaxayso waa Buntland iyo Somaliland ayuu ku yiri qoraalkiisa afhayeen Dabarani wuxuuna intaasi sii raaciyay mar haddii la rabo inay wax hagaagaan oo midnimo dhab ah laga shaqeynayo waa in mas'uuliyiinta Buntland oo ay ku jiraan siyaasiyiinta Buntland ku matala Sanaag Sool iyo Cayn ay ka qayb galaan wada hadalka hadii kale waxa uu wada hadalku ku sifoobaya mid aan masiiri ahayn oo dana siyaasadeed laga leeyahay haddaba daawada intaan barnaamij lamid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tagayaa anigoo ah Bile Faatax sida iyo nabad geliyo